munaasabadan oo ka qabsoontay dugsiga agoomaha Amal ee ku yaala degmada Wadaamago isla markaasina ahayd mid si meeqaam sare loo soo agaasimay ayaa waxa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 15 arday oo xifdiyay Quraanka Kariimka kuwaas oo ka baxay madrasadani Amal oo ay hirgelisay isla markaasina ay haatan gacanta ku hayaan dad muxsiniin ah oo ugu horeyso Canab Maxamuud Riyaraac ayaa munaasabadan ballaaran ee loo qabtay ardayda maanta xifdiyay Quraanka Kariimka waxa ugu horreynba ka hadlay maamulaha madrasadaasi Sheekh Ismaaciil Mustafa Siiri oo isagu ah gudoomiyaha madrasadaasi maayir ku-xigeenka degmada Wadaamago xogayaha dowladda hoose ee degmadaasi la taliyaha wasiirka waxbarashada ee gobolada Bari Sheekh Axmed oo ka socday wasaaradda diinta iyo waqaafta maayir ku-xigeenka degmada Caynaba iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar iyo waliba cuqaal culimaadudiin waalidiin iyo wax karad kale waxayna dhamaantoodba si weyn ugu duceeyeen ardayda kala duwan ee maanta xafladan loo qabtay ee xifdiyay Quraanka Kariimka iyagoo sidoo kalena si weyn u amaanay dadaalka ballaaran ay sameeyeen maamulka iyo macallimiinta madrasadani Amal meeshan hadeer boordankana wuxuu furan yahay muddo 2 sano iyo markaas 7 bilood ayuu furan yahay waxbarashaduna waxay socotay muddo 2 sano iyo 1 bil ayay socotay ardayda maanta ka qalin jebisay waa 15 arday 5 arday hore uga qalin jebiyeen yani 20 arday ayaa ka qalin jebiyay waxaan markaa yani ugu bushaaranayaa dadkii maanta dhismahan iyo markaa yani waxaan oo dhan isku fadhiisiyay wali gacantana ku haya yani dhaqaalaha gacanta ku haya يعني أشركودي وحد دنيا يعني بإذن الله تعالى إنه وحصلي ويعني مركا يجا وحفرحات ما توقف لأن أرضي يجا وحبا مركا قري كرين وحنا آخرين كرين ما شاء الله قبل أبي ما أنت هنا ركيسين خطبة دي كوركا كآخرين أيام يعني عربي دي يعني سي مركا يعني عرب تلقين لبضن أو آخرين أيام مركز يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور مرحبا بزائرين بخيرة الرجال لسادة المجدين تحية الإجلال قدرتمونا كلكم وجئتمونا هنا شكرا لكم أهلا بكم مرحبا بكم في جمعنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح والصلاة والسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور شان شغلنا مدلك خير بدل ما شرتو وهو يقف كاستا انت عينو فردينو دي وهو يقف كاستا دنبغي سالا دافيا وانا لينو شيغ waa madal khayr leh waxaan in yar ka xusaya maxadkan runtii maxadkan waxa uu dadaalay dadyow badan oo ay lambar 1 ka yihiin deegaanka reer Wadaamago waxa lagu bilaabay waxaan dadka imika aqalgooda gelin markii horeysay waxa lagu bilaabay hal qol oo inanta Canab Riyaraac iyo muxsiniin ay ka mid yihiin ay dhaheen ay ka bilaabeen deegaankuna iyaguna waxay ku darsadeen dhulkii 4 balood baa lagu daray dadna sidii marba wax loogu darayay iminka qolashkooda tiraaba ku koobi mayno sidii marba wax loogu kordhinayay marba wax loogu darayay alxamdulillaah rabbil caalamiin iminkana kole dhismayaal badan oo dad muxsiniin ay ballan qaadeen ilaahay ka abaal mariyo oo aan jecelahay qaar dhintay iyo qaar nool been ku jira in loo duceeyo dadka muxsiniinta ayaa iyaguna iminka diyaara waxa iyaduna jirta dafcadii labaad weeye ardaydan iminka quraanka dhameeyay awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu keenay bogcadan khayrka qabta marka labaad waxaan u mahadnaqayaa Canab Maxamuud Riyaraac oo ah afadii magaranaysa ku dadaashay boardingkan oo juhdiga badan ku bixisay inkastoo dad badan ku dadaaleen haddana qofka ugu mudan nafiya maal badee geliyay ayaynu maartay una duceynaa ilaahay dambigeeda iyo dambiga waalidkeedba dhaaf ilaahay baa mahad iska leh ugu horeyn aad bay maanta ii farax gelinaysaa inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha iyo sharafta leh intaa
kadib waxaan aada ugu mahadnaqayaa macallimiinta iyo maamulka maxadkan oo karti fiican geliyey juhdi fara badanna geliyey aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii midhaha la gaadhay ee khayr kale ee faraha badan leh iyo nimcada ah aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad wallaahi dadku inta badan meelaha aan waxba ku jirin baa loo qabtaa oo loo cararaa oo intaa la taagan yahay laakiin aad bay u fiican tahay meesha lagu hayo shareecada diinta islaamka in aad iyo aad loo weyneeyo oo ay qurux badnaato waxa kaliya oo aan anu kaga tegayaa wacyigelinta ah in hoos looga warhayo boodhanka waalidiinta iyo macallimiinta iyo mas-uuliyiinta hadday noqoto kuwa degmo iyo hadday noqoto kuwa gobol iyo hadday noqoto kuwa dhexba in runtii laga warhayo oo xaaladiisu halkay marayso dad la masruufayo oo gacanta lagu hayo waa la ogyahay dhibta ay leeyihiin farxo weeye 2 sano iyo bil buu furan yahay madrasadu waxaa ka aflaxay 20 arday oo 5 iyo 10 ka mid ah aynu maanta siinayno shahaado sharaf ilaahay wuxuu igu sharfay subxaanahu wa tacaala shahaadooyinka la sameynayana inaan burco ka soo sameeyay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga oo gashanaya waqtigayga in aan shahaadooyinkan aan burco ka soo sameeyay iyo kuwii horeba shantii horeba ilaahay baa mahaddaa leh oo waxaan u arkayaa inay tahay shaqo inoo wada taalla xafladan halkan saaka lagu qabtay waxa weeye xafladaha caalamka lagu qabto waa kuwa ugu khayrka badan waxa weeye waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa ay raalliga ka yihiin waxa weeye waa kalaamka ilaahay iyo ducfadii iminka ka qalin jebisay qur-aanul kariim waxa weeye inta fadhida inta maqlaysa inta qabanqaabada wax ku lahayd inta xafladan iyo qurxinteeda wax ku lahayd dhammaanba ilaahay khayr iyo xasanaad fara badan ayuu ka siinayaa waxaa kaloo ilaahay baa mahadle u mahadnaqayaa 15 arday ee maanta loo fadhiyay xafladoodii ee dhammaystay qur-aankii kariimka ahaa kaas kuwaas oo soo bartay waxa la barto waxa ugu qaalisan oo ah kalaamkii ilaahay waxaan ardada qur-aanka kariimka u hambalyeynayaa ama leeyahay sidaa qur-aanka kariimka u xafideen ilaahay naftiina iyo tii waalidkeeba ha xafido markaa waxaa muhiim ah waalidow inta dee kolley ku dadaashay ee ubadkooda waxbartay waxbare laakiin intiina kalena inaa ubadka geysaan meelaha wax lagu barto ee diinta iyo maadiga labadaba inaa bartaan oo caruurtiina kaantarooshaan oo aa isku daydaan in haddii la kelay ajar mooyaane aan dembi laydinka qorin oo haddii la keleeyahay ammaan mooyaane inaan haddii la keleeyahay eedii idinka iman waxaan marka koowaad u hambalyeynayaa ardayda quruxda badan ee xifdiday qur-aanka kariimka ah waxaan leeyahay waxaad taagantihiin heerkii ugu sarreeyey ibni aadamku istaago halkaa maanta aad taagantihiin waxaa garanaya kuwa idinla da-daaya aan qur-aanka dhammaynin waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad qur-aankaa haysaan oo aydan sii daynin anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii wax ka baratay malcaamadaha qur-aanka ee wadaamago waxaan idinku boorinayaa inaydan qur-aankaa sii dayn wax la barto qur-aanka xitaa qofka qur-aanka bartaa ma darxumoodo oo ma baahiyoodo adduunka kuma leeleelo ma silco waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaanba aasaasayaashii aasaasay dugsigan ee ku magacaaban agoomaha oo aanay hadda badankooda nala joogin qaarna ay nala joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana ajarka iyo xasanaadka ay aasaaseen waa ogyahay waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiinta dugsigan ka howlgasha oo runtii dee tacab fara badan iyo quruxda maanta aynu joogno iyo abaabulka iyo madashan qiimaha la soo abaabulay waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta iyaguna soo gartay ubadkooda inay garab taagnaadaan qodobka labaad aan u gudbiyaa waxa weeyaan waalidiintu runtii aad bay u dadaaleysaa sidaa isdubuhu diinta waqaaftu ka dhawaajiyey hooyooyinkii berigii hore dee howlo badan bay soo mareen cabdisalaan
halkan runtii waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay iskuulkan boardingka ah ee ka dhisan Wadaamago, cid kasta oo ka qayb qaadatay qolqoljoog iyo qurbajoogba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay waxaa wax gashateen wixii ugu mudnaa ee wax la gashaday ee koonka gudushiisa saaran oo ah kalaamkii Eebe ina ummad bartaan, ummadaas oo ah ummad runtii agoomo ah. ilaahay waxaan idinka baryaa qof kasta oo jaajuul ku darsaday mashruucan hirgalay ee taabo galay, waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. intaa ka bacdi waxaan iyagana u mahadcelinayaa macallimiinta soo waday intaasoo dhan ee maanta aynu joogno midhahoodii aynu goosanayno, iyagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran jazaa. waxaan iyagana u mahadcelinayaa waalidiinta sharafta leh ee halkan fadhiya ee caruurtooda ku tabcay ee iyaguna runtii dacalkooda ka gardaadinaya, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi jaaisado iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardayda kala duwan ee xifdiyey qur-aanka kariimka ee maanta munaasabadani loo qabtay. jaamac boodacadee, warbaahinta qaranka Somaliland.